Ramadaan Mubarak dhammaan macaamiisha muraasad.com waxaa maanteedii la wadaagi doonaa laba application oo muhiim tahay inay ku jiraan mobilkaaga sabab la xiriira bishan barakeysan ee Ramadaanka iyo wixii ka dambeeyaba. Application-kan ugu soo horeysiin doono ay noqoto inuu ku jiro mobilkaaga laga bilaabo bishan barakeysan ee Ramadaanka iyo soo kale Ramadaanku marka ay baxdo wax uu yahay. Waa application kala dhaho Edan Pro. Application-ka runtii waa application ku qabanaya shaqooyin cajiib ah. Waxyaabo ku qaban doona waxa ugu horeeya waxa uu ku sheegi doonaa waqtiyada salaadaha iyo xilliga la tukanayo. Waxa kale oo ku si fiican yahay application-kani waxa uu ku sheegi doonaa isbedelka ku dhici doona waqtiyada la gelayo salaadaha isagoo ka qiyaas qaadan doona hadba adigu iyo goobta aad joogto. Waxa soo kale application-kani ku fiican yahay waxa uu ku soo dirayaa waqti marka la gaaro xilliga salaada. Waxa uu ku soo diri doonaa notification adoo ka dhigan doona marna eedaan marna ka dhigan doona inaad kugu soo dhaco hab cod ahaan. Labadaba adigu awood ayaad u leedahay. Soo kale waxaad ka dhigan kartaa mar silent xaga marna aad ka dhigan karto inaad codkii iskaba xidhaba. waxa soo kale awood u leedahay application-kan ku si fiican yahay waxa la kartaa aniga waxaad isoo dirtaa eedaanka amba notification waxa isoo dirtaa inta ka horeysa 5 daqiiqo ka hor salaada taasina waxay ku saacidaysaa in waqtiga ka horeeya ee aad qabstay aad u haan doono waqti aad ugu sii diyaar garoodo salaada soo kale waxa uu ku fiican yahay application-kan oo ku qaban doona waxa uu ku sheegi doonaa qiblada iyo halka aad u tukanaysaa hadba dhinacay ka xigto waayo marka qaar kood ayaad u baahan tahay inaad hesho qiblada iyo barta ay kaaga beegan tahay application-kan ayaa ku qaban doona waxa soo kale application-kan oo ku qaban doona inaad ka tasbiixsto amba aad u adeegsato hab tasbiix ahaan hada ku dhuftay imika saddex calaamad barta kaaga muuqda oo toga xaga ka qoran tahay tasbiix waxaad arkaysaa imika xagan iyo talo subhanallah xagana ay yaalaan plus iyo minus anigu hadba u adeegsan kara xagan ka adeegsan jiray gacmahayga iyo tusbaxaba in application-ka laftarkiisii aan ku subxaanlaysto adoo ka heli kara xamdaladii takbiirtii iyo soo kale adkaar fara badanba waxa soo kale oo ku qaban doona application-kan cajiibka ah waxaad ka heli kartaa adkaartaas oo kala duwan waxaad arkaysaa in bartaan ka muuqdaan adkaar fara badan taasoo dhikirka la akhriyo inta ka horeysa weysada iyo runtii adkaar aad u fara badanba oo ku qoran Carabi iyo English baad ka helaysaa application-kan waxa soo kale application-ka aad ka heli kartaa inay kugu diyaar yihiin 99 ka magaca Ilaahay ayadoo ku saamixi doonta in bisha barakeysan ee Ramadaanka aad si fudud ku qaybto magacaanta Ilaahay application-ka labaad ee u baahan tahay mobilkaaga hadii aanu kugu jirin inaad ku soo dhawgaraysto bishan barakeysan ee Ramadaanka ayaa wax yahay waa application kala dhaho Read Quran Offline waxa ku saamixi doona application-kani in goob kasta oo aad tagto aad si fudud ugu akhrisan karto Quraanka Kariimka mobilkaaga dhexdiisa adigoo waliba aanu baahan wax internet isagoo waliba u design garaysan amba u sameeysan application-kani sida uu sameeysan yahay badan ama bogagu ay isku raacsan yihiin mushafkiina Quraanka intaas ayuu ku eegyahay muuqaalkeenu kaga hadlaynay laba application oo ku muhiim ah inay ku jiraan mobilkaaga bishan barakeysan ee Ramadaanka la wadaag oo la share garay asxaabtaada kale muuqaalkan si iyaguna ay uga faa'iideystaan